ilaahay wixii soo dhiibo wax nool soo waxay waa u jeedaa bac waa u baahanay dhar waa u baahanay cunto waa u baahanay dayacnaanta darxumada diifta nolosha adag abaaraha dawla'aanta iyo waliba dhibaatooyinka waa kuwa si joogto ah ay u wajahaan qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho halka aynu maanta joognaa waa kaamka Tabakal waxa uuna ku yaalaa agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada Muqdisho haddii aan dib idin xusuusino xerada tan waa tii uu ku noolaa Ibraahim Macallin Aadan oo aad toddobaad ka hor daawateen isbeddelka noloshiisa kadib taakula dhankiina ka timid dadkii aan ku booqanay kaamka xilligii aan soo bandhigaynay dhibaatadii haysatay Ibraahim iyo qoyskiisa qaar badan oo ka mid ah ayaanu laabashadeennii ama markaynu dib ugu laabanay halkaasi aynan arag waxaana la sheegay dadkaasi qaarkood in abaar iyo baahi darteed ay u dhinteen xeradan waxaa iminka ku nool dad kala duwan wajahayana dhibaato nololeed waxaana dhibaatooyinka dadkaasi haysta ay isugu jiraan cunno la'aan hooy xumo dawo la'aan iyo daryeel la'aan mana jirto hay-ad magaca ay doontaba ha sheegatee taakulaysa dadkan halkan waxaan ka gudoomiye ku xigeen meeshaan ku noolaa Tawakal baan ku nool dadkaas masaakiinta ah oo meel cidla dhooban baa meel ka soo kaxay booskana waxaa iskala dad nin aan ilmo adeernahan ka bari halkaasaan ummadaas aan ku nafaqaynaayo ku nool yihiin gaajo iyo dhibaato iyo dandaraana ka daashay wax ay helaan iyo wax hay'ada iyo wax farsamo ay heleen lama dejintaadii dabadeed dadaal ma sameysay oo ma ula xiriirtay hay'adaha wax gargaara ee magaalada Muqdisho xarumaha ku leh irigaana garaac lama wax u soo kordhay iyo wax u yimid lama arka nin walba waa u imaanayaa qalin buu ka buuxsanayaa sawir buu ka qaadanayaa ana imaanayo leeyahay wax u yimid iyo wax siiyana lama waxaa ku nool halkan caruur haween dad ah oo qaarkood darxumo caafimaad oo baahsan wajahayaan isla markaana aanu awoodin in ay goobaha caafimaad tagaan oo ay iska bixiyaan qarashaadka baaxadda leh ee looga baahan yahay bukaanka doonaya inuu iska dabiibo isbitaalada magaalada Muqdisho qaar ka mid ah haweenka ku nool kaamka Tabakal oo ay keed miidiya wareysatay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen waayihooda nololeed iyo dhibaatooyinka iminka ay wajahayaan walaal magaca lul waa xanuunsanaysaa see lagu hayaa عقارشو لغة الله يكرا هاي اختر ما تكتي كان درس كي هذا ساك حوا يسألوا لي قول هذا لما كنت تريفلين بانكو وصبر imisa sana halkan degan tahay لا استغفر هذا السنة دقل مرمرك ولا باي وانا لقى سكري مرمرك انا لك وانا لقى سكري انت هذا انا لك lule hadda sidaan dareemayno xanuun aad u daran baa ku haya dhakhtarna maadan tagin weli hadda ka hor sidan oo kale ma u xanuunsatay oo
حنون نوع أنا مش وارد هاي لعب هاي واقل لعب الآن بقى تفكر لها مركز يا كاتا غيري اللي هو وين عم بقى عارف ربنا عارف ماذا كورجيني إن شاء الله. kastoo cabashadani ay muujinayaan qoysaskan ayaa haddana waxaa xusid mudan in goobta ay degan yihiin hareeraheeda ay xafiisyo tiro badan ay ku leeyihiin hay-ado sheega inay taakuleeyaan danyarta Soomaaliyeed marmarsiyana ka dhigta in deegaanada loo barakacay ee duleedka Muqdisho sabab amni darteed aanay gaarsiin karin taageerada loo baahan yahay. waxaase isweydiin mudan sababta ay u gargaari la'yihiin hay-adaha UN-ka iyo kuwa maxalliga ah dadkani ay diifta badani ka muuqato. waxaa hubanti ah in xitaa gaadiid la'aan ay kaalmo gaarsiin karaan dadkan waayo deegaan ahaan waa kuwo isku dhow. tanina waxa ay daboolka ka qaadaysaa sida aanay hay-adaha ugu soo jeedin daryeelka shacabka Soomaaliyeed taas beddelkeedna ay doorbidayaan inay gurtaan lacaga fara badan oo si gaar ah ay u isticmaalaan shaqaalahooda ajaanibta iyo Soomaalida isugu jira. dowladda dhankeeda ma mooga dhibaatada ay hay-adaha ku hayaan shacabka walow aanay wax tallaabo ah ka qaadin haddana. waxaana xilliyo kala duwan ay dowladda isku maandhaaftay tallaabada laga qaadi karo hay-adaha ka been sheegaya taageerada shacabka. waa hubaal in Soomaalida ay ka samabixi karto hagarta iyo lugooyada hay-adaha haddii dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku nool qofkiiba uu ugu talagala bishiiba wax ka yar $5 taageerada shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Yeah.